بروفيسور محمد شيخ عثمان جواري قدوميها برلمانka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Soomaaliya iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo kamid yahay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacbiga Soomaaliyeed ayaa maanta diyaarad waday waxay ka soo cagadhigatay geegiga duulimaadyada Ugaas Nuur International Airport ee caasimadda gobolka Galgaduud. wafdiga xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo horkacay gudoonka baarlamaanka waxaa garoonka Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamul goboleedka gobolada dhexe ee Soomaaliya Dr. Sheekh Maxamed Saakir Cali Xasan ku-xigeenadiisa iyo sidoo kale kumanaan kamid ah bulshada degta gobolada dhexe ee Soomaaliya. wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka ayaa inta kadib loo soo gudbiyay gudaha magaalada madaxda gobolka waxayna socdaal dheer ku soo mareen qaar kamid ah wadooyinka marabartamaha caasimadda gobolka Galgaduud ee Dhuusamareeb. wafdiga ayaa ugu dambeyn booqday xarunta madaxtooyada maamulka gobolada dhexe ee Soomaaliya halkaas oo ay kaga qayb galeen munaasabad ballaaran oo wafdiga lagu soo dhaweynayay. ugu horreyn waa kuwan qaybo kamid ah bulshada gobolada dhexe oo wax ka soo dhaweynayay wafdiga uu horkacay Professor Jawaari. waxa xusud mudane mar aan banaan baxnay oo aan rabnay codkayga ka hadalno halka anagoo dhooban oo malaayiin qof amarga marqaata laga yahay xashka la galiyay nimankii jooga dawladda dadka xashka galiyay maraa laga yaabo la biyo banaan baxnay waa la qariyay boqolaal kun aan ahayn haddana waan banaan baxnay laba meel ka dib maxay ku mutaysteen in la dilo ma wana hadli karin mudane sharciga baarlamaanku yuu matalaa maxaa dad nabada loogu duulay maxaa loo laayay horta ana waxaan yiri maxaan horta geysano horta meel ku gala وما تشباب مياه قدرة لها ما قدرة نجمع مشروع الله أرى يا بامر وافكرني والله ونحن واقف عنه. يبقى نقول عيوح نوري من الدولة ده يبقى أنا وعن وحكوا عين الصوماليات بقالي أنا وعن وحكوا عين الصوماليات ويش أنا وعن دلنا الريال كودهين أنا جدو أنت النواة الأكسين لقوك الجبية أيادتك يجين الجول لا يجولها يجين الجدون إلهي ما هدي سوحة aadna aan galabta ugu faraxsanahay. inta kadib madaxweynaha gobolada dhexe ee Soomaaliya Sheekh Maxamed Saakir Cali Xasan ayaa madasha ka hadlay. waxa dawladda federaalka ay diiday annakoo dhahayna maamul goboleed isayo ummadda isugu keena hal laga wada tashado ayay waxay dhaheen wax talaahad ku leedihiin lama arkay dhaheen waana dhisaynaa haddii ay dhiseen aysanna wax talaa naga siinin xaa ka soo baxay halkay bay noogu yimaadeen wasiirka arrimaha gudaha halkan noogu yimid 3 habeenaan gurigaan hadda aan wada joog aniga iyo asagu wada joogno 3 habeenaan wada tashanayne subaxdii ugu dambaysay wuxuu nagu yiri cadaada qarax ka dhacay qaraxaas dartiisa la igu yeeraayo وانا نقفكر mahad Cabdalla Cawad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacbiga Soomaaliyeed oo isna munaasabada khudbad ka jeediyay ayaa ka hadlay hadal ka soo yeeray mas'uuliyiinta ugu sarreeyay dawlad goboleedka Galmudug gobolada dhexe waxa la yiraahdo hadii la yiraahdo dab maafka ku gubanaya Cabdikariim ba dawlad goboleed baa ku sheegnay maxaa tan ugu diiday waxay taariikh ku noqonaysaa gudoomiyihii golaha shacabka iyo xildhibaanadii shacabka matalay ee ku dhaartay inay shacabka matalaan ayaa Dhuusamareeb yimid oo lagu cambaaraynaya taariikh way noqonaysaa waa wax ugu weyn wax aan u fadhinay iyo mid aan filaynay ma aha. ugu dambeyn Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari gudoomiyaha golaha shacbiga Soomaaliyeed ayaa munaasabada ka hadlay isagoo ujeedka eventkooda ku tilmaamay inay tahay sidii u nabadeyn lahaayeen dadka degan gobolada dhexe ee Soomaaliya isla markaasina loo heli lahaa hal maamul oo ay wada yeeshaan bulshada gobolada dhexe ee Soomaaliya. waxa aan ballan qaadaynaa in gobolaha la gali doono ama nabadda la gali doono inaad markaa nagu ayidaan dawladda waxay wado nabadda ay wado inaad nagu ayidaan annakana markaa aan goobjoog ahaano oo markaan markhaati aan ahaano meesha aan joogno fududeeyaashan aan noqono ayaa ayuu yahay qorshaheena. marka taa waxaan idinka codsanayaa walaalo dhammaan muwaadiniinta ku sugan goboladan in aad nagu ayidaan nabad doonida sida hadday xildhibaan xiis uu yiri nabadii amni halkan uu ku haynina fuliya ilaa meesha ay gaari karto ilaa Soomaaliland hal la gaarsiiyo. marka taa waan ayidayaa. محمد علي تلفزيون كعالمي Somali Cable عاصمة gobolka Galgaduud.